dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi cabdi carabi iyo gudoomiyaha baarlamanka galmudug cali gacal caseer ayaa soo gaaray magaalada caabudwaaq waxaana ku soo dhoweeyey maamulka degmada caabudwaaq madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamanka ayaa sheegay in ay u yimaadeen sidii bulshada iyo maamulka caabudwaaq ay wala qayb qaadan lahaayeen soo dhoweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo gudoomiyaha degmada caabudwaaq mahad cumar cilmi ayaa sidan ka sheegay soo dhoweynta madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamanka waxaan salaamayaa dhammaan wafdiga ballaaran ee gobol xaarka ee nooga yimid xarunta kubeelgaarka ah ee cadaado oo uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka galmudug dhammaan waxaana halkan ku sugan gudoomiyihii degmada ahna gudoomiyaha guddiga qabanqaabada soo dhoweynta madaxweynaha gudoomiyaha baarlamanka galmudug cali gacal caseer oo markiisii ugu horreysay caabudwaaq yimid intii uu noqday gudoomiyaha baarlamanka ayaa u mahad ceshay maamulka iyo bulshada caabudwaaq sida wanaagsan ay u soo dhoweeyeen waxaan aad ugu mahad celinaynaa soo dhoweynta diiran ee runtii nala soo bannaan baxay wakhtigan kuleelka ah oo deegaanka reer caabudwaaq madaxdooda iyadoo ay hogaaminayso gudoomiyaha degmada caabudwaaq iyo madaxdii kaleete ee reer caabudwaaq iyo shacabka reer caabudwaaq soo dhoweyntii sharafta laheyd ay noo soo dhoweeyeen aniga iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug annaga markaan si kooban uga hadlo socodkeenna waxa uu ahaa u kurgelidda reer caabudwaaq iyo soo dhoweynta madaxweynaha dowladda federaalka ah sidii loo soo dhoweyn lahaa oo loogu soo dhoweyn lahaa deegaankan oo uu kormeer ku imaan doono muddo gaaban madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi carabi ayaa sheegay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo booqashadiisii galmudug ay berita bilaabanayso ayna u yimaadeen sidii ay bulshada iyo maamulka ay ugala qayb qaadan lahaayeen soo dhoweynta madaxweynaha iyo wafdigiisa oo lagu wado in maalmaha soo socda ay booqasho ku yimaadaan magaalada caabudwaaq sidaa la socotaan waxaa jira waayahan socdaal dheer oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu ku sameynayay puntland runtii wuxuu imaan doonaa deegaanada galmudug berritooda hadduu ilaha yidhaahdo oo ka soo bilaabi doona magaalada gaalkacyo kadibna maaragtay wuxuu imaan doonaa magaalada caabudwaaq waxaan maaragta soo tegi doona cadaado soo tegi doona basmareeb isagoo mari doona waddada dheer iyo halkaas iyo meelahaas oo dhan ujeeddada runtii safarkiisana waxaa waye kurgelidda baahida deegaanada ka jirto iyo dadku waxay u baahan yihiin iyo waxyaabaha maaragtay runtii ka jiro waa dareemi karnaa deegaanka waxa ugu horreeya oo looga baahan yahay waa amniga iyo shaqadiisa runtii sidii wax looga qaban lahaa horumarinta arrimaha diplomatic iyo waxyaabaha kale oo loo baahan yahay sidii wax looga qaban lahaa arrimahaas oo dhan markii madaxweynaha noo yimaado waan ka wada hadli doonaa hadduu ilaa yidhaahdo ayala cabdulaahi jaamac honkable t v caabud